جزيتم خيرا. سائلك سدحاد وحليه الشيخ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كبرك يا شيخ. وحنا هاي نندن يراه وحن كفتنا سنة هاي هردو مالكي أردن وان شفاء صلاة الشنطة أهنا وحن كتو كذا الصبح يا مغرب كوكليه صدح ذاك الهرداء أي يقول عفان لكن مركان توصو أيان سوق اللي صون كي جمع أنصح يا مساء وبريا محادثة يقولنا ساحين لهاي هبينك أول هبين مسح ضمير تصوى لنيرة habeenkii baa ilaahay hurdo ugu talagalay marka ninkani habeenkii inuu saxanin baa muuqato maalintii uu saxda meeshaas aan dayacu waga bilaabanaya waqtiga ilaahay ku talagalay in la seexdo saas daraadeed baa salaadaha badankood waxa la geliyay maalinimada Soomaa salaada subax xilliga la soo kaco doorkii baa ku jira casarkii baa ku jira maqribkii baa ku jira cishii baa ku jira inta la seexan xilliga jiifka loogu talagalay وحلقة عن عبادية صلاة كتيرين اللهم صلاة الصناع وعدي أسوق عيسى مويان مركب خلط كوحكي يدو كلام إسبدل كوكسمة يهبينك يا مالنتي سيداس درادي ضيع باكم مقدار ولا شك إنه آثمية هذه الروحة أسوق الددالي أو تحدري أو محوها هاي هردة حلقة للسياحان جري السياح ددال كيس السمية أي هردة لا تقط أما هردة وين هيبة سيدانا wax kaga tagaan markaas nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu ruuxii yaani wax way ay salaada hurda ka tagsiiso ama halmaan ka tagsiyo markuu soo tooso ama xusuusta ha tukado waqtigeedu waa kaas laakiin waa kee waa ruuxa taxadaray oo salaada u taxadaray oo dadaalay laakiin ninka maalintii oo iska hurdahay oo hurdan ku ibtilaysanay leh kuma ibtilaysanida wax way adaa isdhigay wax garwashada ma aha habeenkii seexo maalintiina salaadaha waajibkaaga tuko oo muxuu ahay ay cibaadayso haddii uu ruuxu uu hurdo weyn yahay salaada subax oo kaleeto waa suurtagal oo xadiidkii Abu Daawudkii ku yimid sanfilayo nabigeena sallallahu alayhi wasallam muxuu ahay gabadhii u timid ee tii rasuulka Ilaahay oo ninkayga saddex arrimood bay kaga sheegtay waxay tii horta uu garaaca ويقرأ صلاتنا صباحنا وكسحنا مد السدحان نصونك ويجا تشبيها صدح سكسو دعوة سيجي بالله وربل ورم بالك ورد الدعوة داسي كاكنت ورنت يد برسول كلاه أنت بويشرا أما صونك أنك تشبيه بوري نبانا هاي قري يجان شوكا حاس كيجي بانو ويسكسومي بوري أنا شوكا kadibna soonkeeda maxaa iga galay daraahigan ka dhamaysan taa iyada waxa lagu yiri ninkaago jooga ha soomin soonku waa sunno ki waajibka ma mid labaad oo ah salaada subax ma tukado waa runteed bay tir waa runteed buu yiri waxaan ahay waa hurdo weynahay sida nadaba reer hurdo weyn baan nahay habeenkii haddaan seexano barqin baan kacnaa buu xilliga salaada subax ma kici karno nabigu wuxuu ku yiri xilligaas soo kacdo tuko hada waa nin dadaalay oo habeen seexda waa habeen hadda seexdana waa dhici kartaa dadka hurdada weyn inay salaad waxa ka tagto Soomaa tii garaacista soo hadhay Soomaa waxaan u garaacay rasuulilaahi oo quraan aan anigu akhristay iga akhristaa na quraankayga ii daaban ka kari waa ha quraankayga banaanka iga mar nabigu wuxuu ku yiri sallallahu alayhi wasallam quraanku adiga iyo gabadha weydu ku filayahay aduguna akhriso iyadana akhriso daabu ku yiri rasuulka sallallahu alayhi wasallam marka maxaan ka soo wadnay ujeedada wax weeyaan hurdada weyn waa sax garowsho way leedahay laakiin gowrmay garowsho yeelan kartaa markuu ruuxu dadaalo oo isagoo dadaalay ay hurda la tagto laakiin hadduu ruuxu dayaco sheekh hurda ila tagtay waan hurdo weyn ay socon mayso hada markaas u qastay ama dayaca iskale wallahu a'lam